السلام عليكم. waxaad ku soo dhawaataan barteena YouTube-ka ugu magac darnay Aways Pro. fadlan haddii aad ku cusub tahay markaagii kugu horeysa soo booqato barteena YouTube-ka Aways Pro, fadlan subscribe. You can try to smooth me. haddii aan ku bilaabno barnaamijkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay gabar u dhalatay dalka Senegal nin u dhashay dalka Norway. gabadha ayaa magaceeda lagu yiraahdaa Sila, halka ninka magaciisu yahay Tony. Mr. Tony ayaa muddo badan wuxuu la soo xiriiray gabadhan. isla xiriirkooda kadib ayaa waxaa dhacday gabadha in ay aad iyo aad jacayl u qaado Mr. Tony. Tony ayaa ku qanciyay in gabadha uu jecel yahay isagana sidoo kale. Mr. Tony ayaa u shaqeeyay kambaniga ka ganacsada dadka jirkooda xubnahooda. asaate iyadu ma oga muddo dheer ay wada sheekaysanayeen ayaa waxa uu ku yiri aad iyo aad baan ku jecelahay, waxaan jeclaystay in aan wada kulanno labadeena. maadii iman karaysa halka aan ku noolahay, tikidkii wax walba aniga ayaa dhameynayo, ayuu ku yiri Mr. Tony. Sila ayaa ugu dambeyntii waxa ay soo dejisay go'aansatay in ay wada kulmaan, wayna ka ogolaatay, balse waxay ku xirtay shuruuday ku xirtay waxa weeyaan in la ogeysiiyo waalidiinteeda. isaga ayaa markii hore ku lahaa ha ogeysiinin waalidiintaada, waayo waalidiintaada haddii aad ogeysiiso qorshaheena ma hagaagay ayay ku yiraahdeen. balse ugu dambeyntii Mrs. Sila way ka ogolaatay qorshihii ayna waalidiinta la ogeysiinin, iyadoo si ay u diidaneen. markii dambe uu ku qanciyay uu ku yiri Mrs. Sila aad iyo aad ayaan ku jeclahay, kaamana maarmo, waalidiintaada fadlan ha ogeysiin. marka ayay ku tiri mar walba adiga leh waalidiintaada ha ogeysiinin, waayo maxaanan waalidiinteena ogeysiinin weyn. waxa uu ku jawaabay uu ku qanciyay waalidiintaada haddii aad ogeysiiso ma ogolaanayaan in guurkeena. kadib Mrs. Sila ayaa waxaasi wax lagu qanco u noqon weyday. mar kale ayuu ku yiri waalidiinta Afrika jooga intooda ugu badan waxay jecel yihiin lacagtaasoo gabadhooda ku bedelanayaan. Mrs. Sila ayaa arrinkii ka yaabtay. maya, sidaa ha oranin amba sidaa ha dhihin ayay ku tiri, waxaasi waa waxa iska dhaadhicisaan dadkiina qurbaha ku nool. Mrs. Sila ayaa hadalkaasi ku jawaabtay. Tony ayaa wuxuu ku qanciyay inuu hadalkaasi been ahayn, dhacdadanna hore ugu dhacday sane. wuxuu yiri aniga aad iyo aad baan ku jecelahay, waxaan jeclaystay inaad igu timaado halka aan joogo. waxay ku tiri fadlan adigu marka hore kaalay halkan, markii aan si fiican ugu wada hadalno ayaan israaci doonaa. ugu dambeyntii wuxuu ku yiri haye halkiina ayaan u soo duulayaa. Mr. Tony ayaa wuxuu isku soo dayay in uu soo duulo dalka Senegal. markii uu yimid waxa ku soo dhaweeyay gabadha iyo saaxiibadeeda. gabadhii ayaa markii ugu dambeysay waxay isku soo raaceen hoteelka, si fiican ayay isku barteen. aragoodii ugu horeeyay farxad ayuu ku bilaabmay. ugu dambeyntii Mrs. Sila ayaa waxay go'aansatay in ay sii raacaan ilaa iyo Norway. farxadoodii ayaa aad iyo aad u balaaratay. Mr. Tony ayaa ugu dambeyntii wuxuu isku dayay in uu gabadhii sii kaxeeyo, iyadoo ay ka diideen dadka eelboorka ka shaqeeya ee booliska ku yiraahdeen caddeyn maxaad ku haysaa gabadhan inaad u kaxaysatay in aad marriage garaysanayso amba marriage. uu ku jawaabay arrinkeena mar hore ayuu soo dhamaaday, waalidkeeda ayaana ka soo kaxaystay. caddeyn la kaalay ayaa lagu yiri Mr. Tony. waalidiinteeda ma uusan keenin, balse isagana waalidkiisa ma uusan keenin. gabadhi ayaa ku tiri aniga ayaa ku ogol warkaasi ka baxa. ugu dambeyntii labadoodii sidii ayay ku duuleen ilaa iyo Norway. markii Norway la tagay muddo bil ay wada joogeen, ay wada noolaayeen. gabadhii reerkeeda ay walwalsan yihiin. gabadhii reerkeeda markii dambe ay la soo xiriirtay, waxay ku tiri anigu waxaan joogaa Norway, nin ayaan ka wada saaxiibnay dhanka Facebook-ka, aad iyo aad baan u jecelahay, isagana aad iyo aad buu ii jecel yahay. ugu dambeyntii gabadhii ayaa ku guuleysatay inay waalidiinteeda ka dhaadhiciso. maalin maalmaha ka mid ah Mr. Tony oo kambaniga u shaqeynaya ayaa message u soo diray telefonkiisana. si lama filaan ayuu wuxuu kaga tagay miiska dushiisa. kambaniga ayaa wuxuu ku yiri gabadhii aaway, si degdeg ah noogu keen, imika waan u baahannahay. Mrs. Sila ayaa fariintii aragto naxdin darteed si degdeg ah kaga baxday gurigii. Mr. Tony ayaa uga soo baxay kaniifka amba musqusha ayaa wuxuu arkay gabadhii aanan joogin halkii. ugu dambeyntii gabadhii ayuu magaceeda inta ugu badan ku dhawaaqayo Sila sidoo uu lahaa ayaa waqtigii halkii kaga dhacay. ugu dambeyntii telefonkiisa ayuu qaatay. wuxuu isku dayay inuu gabadhii garaaco, nambarkeeda ma aha waa mid la heli karinba. ugu dambeyntii gabadhii ayaa message u dhigay, wuxuuna fariin ugu qoray fadlan aad iyo aad baan kugu baahanahay xageed joogtaa
wuxuu arkay fariintii kaga timid kambaniga oo teleefankiisa saaran shaashada. markii uu arkay waa uu isku naxay iyo siiloo guriga aanan jooginba. Ninkii ayaa Mr. Tony ayaa isku dayay inuu baaritaan sameeyo. markii uu baarbaaray guriga iyo meel walba uu ka eegay uu ka waayay. guriga dibadiisa ayuu ka eegay uu ka waayay. ugu dambeyntii waxa uu shiday saacado kadib teleefankii ayay shiday Mr. Sila. markii ay shiday teleefankii ayay message-kii ku aragtay. way isku naxday in ay daba taagan yahay markii aragtay. dabadeed ayaa waxaa dhacday in ay wargeliso booliiska kuna tiraada ninka ayaa soo afduubtay igana soo afduubtay dalkayga hooyo. aad iyo aad baan ugu baahanahay ninka halay qabto. gabadhii ayaa ay ku dacwatay booliiska. kadib ayaa waxaa dhacday Mrs. Tony in gurigiisa ay soo dhoobmaan booliiska. kadib markii uu booliiska soo dhaamay ninkii Mr. Tony ayaa halkii laga qaaday. baaritaan dheer ayaa waxa ku cadaatay inuu arinkaasi la damacsanaa gabadha. haddaba dhageysta ama daawade fadlan adigoonan hubsan Facebook waxa ka socda weliga ha isku galin afaara aanan kula ekeen iskana ilaali waxyaabaha degdeg ee aad kala kulmi doonto baraha bulshada. anigeegan imikaana fariinta news tabinayo ayaa waxa dhacday in ila soo xiriiro nin aan caadi ahayn isagoo sameynayo waxyaabaha aan caadi ahayn. haddaba iska ilaali waxyaabaha qaarkood ee ka socda baraha bulshada. walaalkiina oo wanaaggan ila jecel Facebook-gan ha ku degdegina. Mr. Facebook ayaa magaciisa uu yahay Facebook wajiga beenta. haddaba adigoonan xaqiiqsan ha degdegin. waa casri cusub. qarniyadan la joogo waa qarni aan inaba caadi ahayn. haddaba waxaan leenahay nabadgelyo la socod wacan barnaamijyada kala xiga. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.